codsiyan wataa qoftii hooyo qolka soo furato ku caytanto waa ilma xaaraan waay ilma xaaraan ilaahayna waxaa ugu baryaa cuduraan la aqoonin qofta hooyaday meesha keento inuu ilaahay u keeno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا السلام أصحاب قالقة السود وهذا صباح وناكسن صباح إيتا صباح وناكسن يا جوجو وهذا السلام كل جين السود وهذا أنت ورا وجوكتي ما تسن السود وهذا أنت هذا تمرو السبوع يصوب وقد وانتنا عليها soo dhawaada minka waa minkiin gurigu waa gurigiini reerka waa reerkiini waxaan rabaa dadkii ila jiray oo saaxiibada ahaynay oo aad iyo aad asxaab u ahaynay amba luuq waxay uu soo qoro amba kor hayla hadlo waa ahayd inaan qaato warkooda صح قف وحيب النعبت هذا بآدم كانوا الصومالي ذا وحا آتراه وان نعبة هاي يجعلهم انتي حالي وصوفر تقول أنا بحيوك من هلين بيسي بان هاي يقول كمركان كسود دقدي waxaan islahay qof ma joogto mar allaala markaan oo maaragtay aan fadhiistay waxaa la soo diray luuqa laga soo diray qolaa laga soo furtay ani markaa qolka ma ogeyn wuxuu yahay waa soo laabday dib uu soo laabday miyaa la igu sheegay qolka waa tagay waa joogo ama hal ay arko ama yaa la arkin muhiimadda aan u socdo marka taas ma muhiimadda aan u socdo horta number 1 waxa waaye gabdho badan meesha soo fuuleen waxay dhaheen deji sawirka kuwaasna waa ku mahadsan yihiin walaalo haday walaalo ku yihiin haday aan walaalo yihiin kuwaas taas garaadkooda iyo qof aniga lay sharfaayo oo waxaan ku dhahay deji waxba ma halaynin dimbi ma gelin waa xildhibaanadii la dhahay iyaan aad u mahadsan talabaad intii meesha tiri hadalka kor ha u qaadin waa maasantaada mahad irintaada walaalnimadaada sharaftaada waa leedahay qodobka u soo fadhiista marka muxuu yahay waa hooyaday la caayay hooyaday aniga i dhashay ee naagtan idi ag fadhida dhashay intaan la eg horta wiligay qurux kuma tartamin aniga waxaan isku haystaa inaan qurux badana inuu qalbigayga qurux badan yahay hanti kasta haddaad haysato adaa iskale ani malihi waxa aniga leeyahay this is me no hantidaada iyo waxa adiga tabcatay iyo waxaad fool eebo ula tacbatay adaa iskale degandaysana birigan kadib hal codsiyan wataa qoftii hooyo qolka soo furato ku caytanto waa ilma xaaraan waay ilma xaaraan ilaahayna waxaa ugu baryaa cuduraan la aqoonin qofta hooyaday meesha keento inuu ilaahay u keeno cuduraan la aqoonin oo waxaan ku dhahay weligeed la arkin inuu ilaahay ku salado ummadda takor inuu ka dhigo qof hooyo caayhaysa waa ilma xaaraan waa saqajaamad qol doonta iga soo fura anaa kuu soo diraayo sawir aan saas u kala jeejeedo u ego anaa kuu soo diraayo markino anaa kuu soo diraayo anima joogiyo anaa kuu soo diraayo aniga haddaan rabo aan soo fadhiisay haddaan rabo deema ismarmarina
haddaan rabo deebaa ismarmariha telefoon iga soo dhex galay haddaan rabo deebaa ismarmariha haddaan rabo xaaraa isku malaasaa haddaan rabo waxaan doonaa ismarinaa aniga qalbigayga iyo quruxdayda waa la socdaa degandaysan yaa la celin qol kasta iga soo furaysta friya wata 9 kooxoodna ha soo wadato aniga kuma maleehaynin dagaal hoosaadka inaaba saan ula dagaalamayso ana dagaal hoosaadka iga sii kuleel badnaa neeg markaa qol iga soo furto waa quslaba maxaa qusl adaa kugu qusl fakata qol soo furo sawirkayga habababa hooyaday hadda qofti cayso ilma xaaraan aan weligood hooyo arkin oo shaydaamiin oo waalid caasi waay hooyo qofta meeg u qaadatay ilma xaaraan waay taas midii dhacday aniga qofta horumar samaysayso maba kama siiraayo waxaaba u qabaaba qoftaas horeyso ma fiiriye aniga tayda ama ina soo fadhiisato yaa karaanki ilaahay igula tartame iga badiso waa iga badi kartaa taasoo kalaa laga yaabaa inuu xanuun iga qabto xanuunkaasaa laga yaabaa maahine ilaahay soo ii abuuray iyo adduun la helo oo adig gacmahaada ku samaysatay no way weligay kama maseerin boqorada ah madaxtooyan ah waa duulaa xaa kugu dhacay maba hooseeye naag hooseysa maba ihiba sheen ku dhah naag madaxtooye oo horeyso oo sharaf gurigeeda aad iyo aad sharaf ugu leh tabaant naag waxaa ahay gurigeeda sharaf iyo cisi ku leh hooyadeed iyo aabaheed sharaf iyo cisi boqortooyo laba ma ah yaa aan qirana waxaan rajeehaa inaan jannada galo ilaahay waxba ma dhibo yaa dad aniga horumarkiisa iyo dad wuxuu suubiyey iyo ku dayasho iyo hebelow aniga waxaa maskaxdayda ka samaysto iyo waxaa aniga doonaan falaya fartaan doonaan qoraa dowlad madax banaana ah laakiin dulmiga waa layga shidaa fasaxa u tahay qof walba oo meel joogtane sawirkayga deji hadhihina intii hore u tiray mahadsani haddaad 99 qol furato free out adiga free out iska furo laakiin kelmadda haada haddaa ku soo darto ilaahay meel dhow kaa sii hayo laakiin anigaan ku hor fadho waxaa doontay dheh saa doontay ii cay waan taagana qoftii hooyo cayso hooyadaa waa aniga hooyaday oo kale kelmad weligeed ismaana arkin ishaba isma saaran kelmadkeedaana ma maqlin hooyadayna kelmad tadaa ma maqlin see marka hooyaday meesha u keento irtirniyo waxaan oo xaaraamiinta lagu dhalo hooyooyinka cayayaan oo ilma xaaraan qof hooyo cayaysa haddaa aragto waa ilma xaaraan waa eeyo waa shaydaamiin waa waxaan ku dhahaa faasiqnimo waa dad waxaan ku dhahaa waalidkood hatee naxariistooda hal nabar hatee saasanka u saaray aana ursanin oon dhihin hooyo ya eena tarbiyada looga dheelaan ku dhaha haddaa tarbiyo leedahay hooyada macaan macay laheed waa maya tarbiyo malahdiina tarbiyo yeesha tarbiyo la-aanaa idi haysee afaarahaygana ka baxa waxaa doontiin fala aniga inaan sharaf leehay oo bartaan jooga sharafku leeh oo ilmahayga iyo dadkayga iyo yaa ma kugu dara halka kale waa rabtaa inaan kugu daree aan sharaf iyo cisi ku noolaa waa oga anaan isku yeela
إلهي الحمد الشكر رب العالمين تنكوات إلهي ما هتعلم تقوله أنت كلامي كعنتين أنكو سميسن ولا حتى أن ربطنا كل بصباس كل سومر ستة أفر إلى ما تسع أفعماك شيء كريستين كشي بصباس كساس سكوت جوكيا حتى واحد سق جامينة كشكايا سق جامينة تيني وريا الصعدة شقياش